Assalaamu calaykum anigoo ah magacayga Maxamed Nuur Axmed oo dhigta iskuulka Sacaada gaar ahaan fasalka toddobaad halkan waxaan kasoo jeedin doonaa barnaamij la magac baxay baro gobolada dalkaaga hooyo Soomaaliya barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa gobolada balse aan ku bilaabno barnaamijkeeni Soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska Afrika dhanka qorax ka soo baxa Soomaaliya waayadii hore shisheeye waxay aqoon jireen magacyo kala duwan sida Boonti ama Puntland oo macnaheedu yahay dhulkii uduga dhulkii xeebaha iyo dhulkii daahirka ahaa Soomaaliya baaxadeedu waa 637,657 kiiloomitir square Soomaaliya caasimadeedu waa Muqdisho Soomaaliya waxaa loo qaybiyay 18 gobol oo loo qaybiyay 4 qaybood waxayna kala yihiin gobolada waqooyi bari gobolada koonfureed gobolada dhexe magacayga waa Saalax Maxamed Saalax oo dhigta iskuulka Sacaada gaar ahaan fasalka 8aad gobolada waqooyi waxaa ka mid ah gobolka Awdal gobolka Waqooyi Galbeed gobolka Togdheer gobolka Sool gobolka Sanaag gobolada waqooyi bari waxaa ka mid ah gobolka Bari gobolka Nugaal gobolada dhexe waxaa ka mid ah gobolka Mudug gobolka Galgaduud gobolka Hiiraan gobolada koonfureed waxaa ka mid ah gobolka Banaadir gobolka Shabeellaha Hoose gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Baay gobolka Bakool gobolka Gedo gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ahayd baro dalkaaga hooyo mahadsanidin